الله نحرسته waxaa dhawaana dalka Jarmalka ku geeriyooday heesaagii caanka ahaa ee Cabdi Cali Bacalwaan oo kamid ahaa fanaaniinta geyga Soomaalida aadka looga jecel yahay waxaana geerida ku timid marxuumka ka tacsiyeeyay agaasimaha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Xasan Cali Weji abwaana uu kamid yahay Cabdi Aadan Xaad Cabdi Qays abwaan Maxamed Aadan Dacar Cabdi Faacuul oo kamid ah bahda fanka إكران جامع iyaduna kamid bahda heesaaga iyo Mustafa Cabdi Qays oo dhalay abwaanka Cabdi Aadan Xaad Cabdi Qays waxay ka warameen taariikhda uu ku lahaa dhinaca fanka heesa Cabdi Cali Bacalwaan iyagoo Ilaahay uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkii qaraabadii uu ka baxayna samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo marka la leeyahay naxariistii ka waraabiyo waxaan isugu maanta u joognaa oo min walba maalintiisa weyn وحويا ما أنتوا حنودوا عيننا مرحوم عبد علي بعلوان وحنذكر عصرنا إن كستو مقال كيف شو قالوا إن أبدون كعبدان نحريست تشننا إلهي ويتسان وبرغان وحنقول لهم هاي إن الله أنت تقينوا لسبري إيمان وأنت في الصومال كوهذا سمير كستو أيشو جنبا بعض الفنانين تلسجارا نقول تعسينين قويس وكبحي وبتكيسي يهل كيسين وحلام هاي كل جيجي كم بحنا إنه لهم بيننا بحي لهم عشتنا كورابيو إذا كنا نحد حدنا لهم هو الصبر عبد علي بعلوان هرت ماشي أو عنك كل نقضي أو كل صبح قف بمر بالد العصرية لكن كوال وود كذا لكن قف بمر بالد العصرية هل كأو كبالد العصرية هرت وهل كان عليه مكهذين مجاهد عن كهذين نهر جيسة أيو كل نقضي لكن يهان عامة السجوا وحنا يمي قاعدة هل هيس لقوا يقانه قال لي هذا أرض أيوة عام كوها تأييد لقوا يقانه هالكيمي كواحد اللي سوب الدليل فربضن بيكوتشرين دبده تنا مركه هرنا وحها يسقوا عيد مده حيوق الدلك أيوها قولدي سووري تمر مقعن وبري بالله بحذي بحسيب وكم دها السجا يرك بدرو إما كده أنا تنكرين عيدا كبدني markuu halkan yimi wuxuu ka qayb galay dabadeetana shaqadii halkan ka socotay bariga tiyaatar ma jirin warka riwaayada loo baxday dabadeetana riwaayadii ugu horeysay la isugu tagay oo lahaa abwaanka weyn Cabdilaahi Xasan Xaaji Cabdilaahi Xasan Ganay la oran jiray dab jacayl kariwa ayuu ka qayb galay dabadeetana wuxuu noqday ninka xidiga labaad isaga Sahar Axmed Allah uu naxariisto naxariisti janna Allah ka waraabiyo ilaahay ha u naxariisto meel wanaagsan ha geeyo ilaahay janooyinka ha ku casumo ilaahay ha u naxariisto Cabdi Cali Bacalwaan ilaahay meel wanaagsan oo ilaahay annagana ha naga noogu geeyo wanaagsan إلهي هجيو إلهي ونم وين بوهاي إلهي ونحرسته ومتى واللي بيقولون كنا نرعاه إلهي ونحرسته والله إنا لله وإنا إلى راجعون حضر هرا لو يري أود إنتي جوينيد باتري أنا وحن إلهي قبرية إنه إلهي كتاب كيس ملكت وكسيه يا إلهي قبرية ده أنت دم نفك الصومالك وهذا شنا إلهي سمري إيمان إنه كسيه قارحان فنانينتي أي أنت بدو ذا شقينين وما تكوه سيو وحي الله قبرينا إنه إلهي سمري إيمان إنه كسيه إنا لله وإنا إليه راجعون دعاء نبرينا ما تدعو إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي ونحرس عبد بعلوان عبد علي بعلوان تضياش فان كافرديه ودانو فهنو وانها لكن وحلا فنان وين بوها إلهي ونحرسته قبريس الله ونوره عروتي سمري إيمان إلهي كسيه بعد فنانين يرجع صوت الشقيين يو أبوانين تيدا يو دمان مضى أفكار إسلام حتى أفكار صومالية إسلام أبا وحليها اللوجعية إنا لله وإنا إليه راجعون هل كان وحن تعصيد أمرنا إنه إلهي لحرسنا إلهي ويديننا فنان كيني ويناه عبد علي بعلوان أنا قلت بركان صبر بارني رجع أنا أدو كوش علىها
waxaanan heesihiisii nin wadaniya oo aada u hanweyn oo sharafara jecel buu ahaa intaa ka arkay anuu yar wax badan maan arag waxaana hoohay africa huruday heestii la odhan jiray waa ninkii codkeeda lahaa xagga wadaniyadda hoohay africa huruday haliyeedaadii hurudoy haad baa cunayay hurudoy marka ilaahay waxaan u baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo